قولي أنت يسعي يلقي قلم سيب عنه gabadhayda iga qabo maanta laga bilaabo mas-uuliyadeena dhan adigay gacantaada ku jirtaa cid aadan adiga raalli ka ahayn haba yaraatee waxay kaa qaadayaan ma jirto inaad baqdeen niyaddada ka saar gabadhayda inan maanta oo dhan waxaad u khaylinaysa waxaad doonaysa soomaa midaan anigna ay tusiso anigoo 20 jir gurigan jooga aabe adina waxoo dhan gabadhan aad ku saxiday soo maaha gurigan wax yaaloo dhan ku saxiixayaan ku leeyahay aniga midaas kuleel iyo qabab inta bay ugu mahaysaan kule aabe adiga gabadhan hantidaada dhan soo kuma saxiixin hantidaada way ku yartayaan kule gurigaaga gawaaridaada intaba ayaga ku wareeji laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa haddaad ayaga ku wareejiso iyo haddii qof kale aad ku wareejiso xitaa aniga kuleel iyo qabab intaba igu mahayso waa nin sii tagada wuxuu gaar u yahay Cable TV abo adiga waxyaalo wanaagsan oo fara badan ayaad ii samaysay haddana ma loo baahno waxaan oo dhan in aniga dartay u samaysay daabo iska dhaaf gabadhaydii aniga go'aankan mar hore ayaan gaaray waxaanan gaaray markii aan adiga wanaaggaaga arkay gabadhaydii waxaan mas-uuliyaddan kuugu dhiibay weliba wiilkayga oo isla gurigan joogo wax kaleeta maahan waxaan ogahay wiilkayga inuu khayr mas-uul yahay adigana aad ka wanaagsan tahay waxaan guriga ugu haystaa wiilkan inuusan iga fogaanin oo keliya hawlwelin gabadhaydii wax walba way hagaagi doonaan waxaan oo dhan maxaa waayna maanta waxa dhacay wax fiican maahan gabadhayda hantidii iimaankii wiilkayga lahayna adiga ayaa lagugu wareejiyey taasna dhaawac ayaa qalbigiisa ka soo gaari karo laakiin lama dareensano taada kale gabadhayda wiil iyo aabiis colaadda ka dhexayso inaad sii fogaysid ma rabo waa inaad xalisaa oo keliya adiga ayaa mas-uuliyaddaas ku saaran tahay hooy adiga miyaaba sidaas dhahayna adiga waa la socotaana aabbo hadalka uu hadda ka dhawaajiyey sideeso ugu ogolaanaysaa aniga inuu mas-uuliyaddoo dhan dusha iga saaro hore waxaad ii dhahday wiilkayga adiga ayaa beddeli karo inuu isbeddelana raja ayaa ka leed hadda maxaa waaya rajabeelkan kugu dhacay hooyo haddii aad adiga garbisiiso waan huwa inaan dhaqanka baramaad beddeli karo wuuna isbeddelayaa waan ku baryaa marka intaas garab igu sii haddii aad garab isiiso waan guulaysanaya
eedo waa kuwaanaa daawooyinkooda qabso raashin ma cuntay haa 4 xabo buskuda iyo biyo aan maanta dhan isku dirqinayaan ku dhahay saan u cunayo nucabay waan daalay waana dhalagsanahay haddii aad raashin rabto hadda ayaa kuu soo samayn karaa maya isku dhibin inaad dartay aniga hadirtaan aad jiko u gasho laakiin haddii raashin diyaara uu yaalo waan iska cunaya maxaa ku diidaa oo ku keena okay كبح حتى جالس بغيستا هي قيل سوي مرة بنانك أكقيل انجرتنو حدرتان قلك هذا أيان صوقلي محا قادي كرتا أي شيء هاي وحا قادي كرتا تسوسي مرك حتى قندد واحد وكاد دكتي سلطان كير إدقيسو هالمر سلطان كير أكبر يا هالمر وددي نصور استاكت معنهد ما حيتا عيال سوغني مدن عيال سوغني مدن كهدلس أذي عدان كيهن ما وكو دقبتو قد كان أي أدين دحي لبدينا هانا اسكو دين قد كان إنها تتلاوسو قد بسو أديك وحا كورون النفط هذينا حكميسو سببتو يا أنيقا هل سر أيان كهايا sidaas darteed aniga xadkayga iima sheegi kartid waanan haddee noqoto ima waani kartid kaliya wixii niyaddeeda ku jiro ayaan samaynayaa aniga adiga haddii aad doonto ku dhaqaaq wax niyaddaada ku jira balse khasaaro adiga la kulmaya aniga runtii sheeg haddii aad doonto laakiin khasaaro inaan la koro lagama yaabo haddii aad badrooniga wax u sheegto maxaad ogaataa gurigan iska daa magaalada xataa inaad guuraysid oo weliba aad qixi doontid uf jecelsa idaa ku haaye haddii aniga sidaasoo dhan haddii jeclaan lahayd kuma cidlee lahayn laakiin ma dhici mudana nafii jandar anigana waan ilowaa magacaad saxda inuu ahaa saraswati jandar magacaaga saxda soo kan maahan kumad aniga darteeda dhib ugu jirtaa mana doonayo dhib kale ina madaxayga u gasho si kastaba hay u qaatay kalika afkeeda waa in xiraa waa haddii afkeeda ay kala furto kumad dhibaatada ayaa ku sii badanayso سكة كوموت آدي وليبو كالي أديك واحد دوني سوما أديك قريقان واحد ربتي أنا كان خط بخرتويو وينك ورقة شيء هذا فيري ورقدان أديك
ayay magaceeda ku saxiixan tahay ciyaar ana caadi ahaan noola ciyaartay ciyaartani waad ku guulaysatay waad aragtaa anig maxaa sameeyey ii sheeg wax qalado oo sameey malan haddii uu aabbo go'aan gaarayna waxaana waa go'aankaas inuu yahay mid saxan maslaxadeena ayuuna go'aankaas u qaatay sidaas ayaan u malaynayaa aniga wax kale ilaa ma samaynayo aabbo hadda kadib waxaa laga baahan yahay sidaan la inoo faraxsanaa gabadha aabbahay u jeclaa guurkeeda adiga qaban qaabay soo maa adigana ku kalfay kalika la guursado ayaa wanaagsan sababtoo ah labada qofood markay isguursadaan kadib waxaa wanaagsan labadoodoo keliya in ay isla noolaadaan haddii uu qof saddexaad noloshooda soo galana saddexdoodaba noloshooda way qaribmaysaa arrintaanna waxaad fahmaysaa kaliikaa maalintii la guursado makaa dhabbaa waxaan u malaynayaa cabsida aniga cabsan jirtay waad iskalata soo maaha مسلسل كلمة annagaana noqonaysaa miyaan boqoradda lacagta anaga noo maamusho dikayeemayaan ku dhahay marnaba dhiciyayso aniga waxaan sameeyey ma ahan wax qaldan waana ka fikiray tallaabadan aan maanta qaadayno labadeennaba maslaxaddeenna ayaa noogu jirto ma ku shuwaa waxaan aniga waa xiriirka aniga adiga naga dhexeeya inaan wanaajiyo intaan isku dayahay xiriirkeena inaan wanaajiyana waxaan ka cabsanaya xiriirada kale inaan ku ciyaaro maxaa meesha ka dhacaya hooy intii abkeena yaa ku amra milkaana soo geshid weliba gabartay qolkeed maxaa ka samaynaysaa hooy sheekada maxay ahayd iga dabagaaciyow adigan ku weydiin anika maxaa ku keenay edabdarada mininkaad ku soo xalaysay hooyo oo ma bishii xisba afkaadii kala furey miya inaad ila wartidaad darabtaa iska jir ninkaan bixiyaan ku dhahay mininka bixi waxa waaye xalay kumaari ayaa shirka waryaa gabartay afkaaga aas ka soo bixin magaceeda wasaqiyow lamadiina walaala labalaba ani dishe anaga baa noolkiin soo diray ii sheegbo koona waa kana gabartays noloshooda kudhal adninta ay joogta isna xagga maxay dhahday igu soo celi waxaad dhahday mooyi wuxuu ku dhahay ku dhahay oo maqashiyaan ku dhahay soco meeaan ka tagaan ku dhahay mar dambana soo noqonin oo isku dayin inaa imaadi soo mad milkeed mar dambe ninkan agaarkiis leh haddii kugu arko saldhigaan tagaa waana ku dacweynaa xabsi aana ku geeyaa ogaaw ha isku imaanin deeni waxaan kuu soo sameeyey shaahi caano la'aanta oo adiga aad jecleed waa kana hoo caab jegmati waxaan ku weydiinayaa daris maa tahay aad markii oo ninkan cuntiina u soo qaadi siinaysa cadowgeyna waay waaba ogtaaye adiga qalad ayaa fahamsan tahay deenina sidaa u malaysid ma ahayn anigoo meelaa iska qabta aanan aqoon gumaariina ay qandhahayso ayuu deeni ii caawiyey run ahaantii deeni hadduusan ahaan lahayn gumaari xaaladdeeda ma aqaan siday noqon lahayd
maxaad ii wacday suldaankeer waa ku barya i badbaadi aniga gurkan inaan galo diyaar umi adigoo keliya ee badbaadin kara waa ku barya adiga dadka hortooda waxaad ku dhahday haa guurkan waa ogolahay hadda maada aniga garab i weydiisanaya ii sheeg sidee kaa noqotay qofiye maxaa samayn lahaa ma dadka hortooda ayaan ku dhihi lahaa guurkan raalli ka mihi mise dadka hortooda ayaan ku dhihi lahaa aniga suldaankeeraa jeclaa isagoo keliya gursanayo yaa saas ma aragti suldaankeer oo ku barya aniga iyo aamin guurka adigoo keliya ayaa joojin kara aniga hadalkayga lama maqlaayo kumudoo keliya la dhegaysana dadkaanoo dhan kumud hadalkeeda ayay yeelayaan aniga cid hadalkayga qiimeynaysa mala waayahay hadda maxaa kuu qaban karaa ilaan wax kuuma qaban karo ogtahay may saasaa dhihin waa ku barya isku day inaad wax samayso wax uun la sameey ilaan dadka adigay ku maqlaayaan midda kale haddii aan kaa fogaa see ku noolaanay adiga hadda anigoo barmaad ah adiga waxba kuuma qaban karo sababtoo tahay jeebkaygu waa maran yahay wax lacag ana haysto habeeraatee ma jirto jeebkaygana waa faarukh aniga haddii aan kaa fogaado adiga maxaa kugu dhacaa suldaankeer noloshaasee noqonay heer aadan gaari karin haas gaarsiinin aniga agteyda wax qiimaadka leedahay haba yaraatee ma jirto ma garatay haddii aan agtaada muhiim ka ahayn guurkayga markaad maqasho maxaa la xanaaqdani waxaadna ogaataa aniga inaadan noolaan karin agtaadana muhiim oo keliya kama ihe qaalina waa ka ahay maana sii daa naagiina dhan waa la ogyahay inaa carab dheertihiin carab dheeridana waxaan ku sanacay kumud adigana middaas meel imaadee iga joojiyaan kule iska bax wejiga korra laakiin labadan hal sabab aan damacsannahay ya oo waxaad la hadlaysaa qof kulankooda maanta ugu dambaysa oo kale runaanta labadiina ilaa yaraantiin ayay saaxiiba ahaydeen aadan uddoon tahay labadiina si aad isku iloobi lahaydeen soo sax maa dalkeyga waryaal halkaa maxaa ka soo doontay kaalikaa baan ogahay arrintan aad inay kuugu dhib badan tahay laakiin waxaan ku dhihi lahaa hadalkayga qaado ilaan adiga waddadan oo keliya ayaa ku wanaagsan waayo tallaabo qaldan haddii aad qaaddo waxaad ogaataa noloshaa inta ka dhiman inaad rafaadi doonto marka aniga waxaan ku dhihi lahaa tallaabo qaldan ha isku qaadin sirtana keedso maxay tahay waxay qarinaysa kaalika adig ma jeceshay arrimahaaga farmaad inaan ugu sheekeeyo ii sheeg waa kuu sheegi doonaa wax walba oo ku saabsan kaalika oo dhammaystiran weliba aniga xad kuu sheegaan kaalika gurigan wax badan ayay ka heshay micnaheeda jaceylka hooyo jaceylka aabba iyo weliba adiga saaxiibtinimadaada marka kaalikaa sirtuu qorsoon waa intaasoo keliya soo saxmaa hadalkayga waryaa meeshaan iskaga tegan kor ya maxay dhahday hadalaad qaadid meeshaan ma yeelan sida dhaqsaha badan waxaan ku leeyahay iskaga teg meeshaan maalmahan dambe ninka mudan mafiila dhow qaylida ayuu badiyey
wax walba uu sameeyo ama si walba guurkan ugu dadaalo lagama yaabo aniga inaan ogolaado inaan guursado waana ka soo horjeesanayaa wax walba hay u qaadatay guurkan tii baajileed waa aniga lagama yaabo dheeshaas in laygu guursado suldaanka yarna aan ugu fogaado dheelaa dhex ku joogto midan nafiyi